munaasabadani waxayd mid hadhimo sharafeeda oo loo sameeyey ugaaska guud iyo boqorka beelaha dir isla markaasina ay munaasabadda hadhimo sharafeedka ay dhigeen beelweynta Akisha ayaa waxaa ka soo qayb galay salaadiin cuqaal ugaasyo garaado dhalinyaro aqoon-yahan odayaal iyo marti sharaf kale uga casuumay munaasabadda hadhimo sharafeedka waxaana ugu horreyn munaasabadaasi ka hadlay Suldaan Abshir Xasan waa suldaanka isagu fidiyey munaasabadani hadhimo sharafeedka labaanta direed ee halkan fadhida ee ugu horeeyaan ugaaskeena qaaliga ugaas Cabdillaahi ugaas Aadan ee waayahanba isaga iyo boqor Cabdirasaaq boqorka direed boqor Cabdirasaaq Xaaji Aadan casuumadaha iyo hadhimo sharafeedka istaba jooga muddo imika aan wadnay ilaa imikana ay sii daba joogaan waxaan leeyahay aad iyo aad baa laydin jecel yahay aad iyo aad bay sharaf weyn noogu tahay inaan hadhimo sharafeedkan aan ku kulanno waxaan leeyahay waa qiimo weyn waa maalin taariikhi ah waa xasuus soo noqon doonta haddii ilaahay yidhaahdo waxaan leeyahay maadaama sida fiican aad noo soo ajiibteen aad iyo aad ku soo dhawaada tolkiin oo idin jecel oo fursad qaaliya idin helay maanta in boqorkii direed boqor Cabdirasaaq Xaaji Aadan oo magaalada London iyo qurbaha inooga yimid iyo ugaaskeena guud ugaas Cabdillaahi ugaas Aadan oo isna inooga yimid Soomaaliya waxaan leeyahay waa munaasabad qaaliya waa xasuus aan la iloobi doonin geesooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay salaadiintii cuqaashi iyo weliba odayaashii ka soo qayb galay munaasabadda hadhimo sharafeedka ee loo sameeyey ugaaska guud iyo boqorka beelaha dir madaxda dhaqanka ee beelaha direed oo ay ugu horeeyaan ugaas Cabdirasaaq iyo boqor Cabdirasaaq iyo ugaas Cabdillaahi madaxda dhaqanka ee guud ahaan qowmiyadda direed ee maanta halkan fadhida aqoon-yahanka iyo waxkaradka kale halkan ilaahay jooga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa tabaaraka wa tacaala mahad leh waxa kale oo mahad celinayaa Suldaan Abshir Xasan Cigaal oo runtii munaasabadan suldaanka beesha Akishe oo maanta munaasabadan qada sharafta inoo sameeyay oo ku maamusay boqor Cabdirasaaq iyo ugaas Cabdillaahi oo in muddo ah halkan inala joogay miisaanka xasanaadka ilaahay ugu daro ayaan ugu ducaynayaa Suldaan Abshir guud ahaan beesha uu magaceeda ku hadlayo ee mas'uuliyadda dhaqan u hayana si mugiyo miisaan leh ayaan ugu mahadnaqayaa ugaas Cabdillaahi iyo boqor Cabdirasaaq oo muddo nala joogay waxaan leeyahay waxa ka timaadeen gurigiinii waxaana timaadeen gurigiinii qalbi furan iyo niyad saafiya ku soo dhawaada dadkani waa dadkiinii weeye guud ahaanba ummadda direed waa walaalo weeye shanta dal ee afka Soomaaliga lagaga hadlaha ku kala noolaato oo xuduud caalami ah lahaato laakiin ummad dareen midaysan la weeye fariinta aan halkan ka direynay qowmiyadda direed ay xambaarsan tahayna guud ahaan waxa weeye in nabadda iyo jaar wanaagga la wada ilaaliyo in ummad walba intii halka alla ku wada beeray ay nabad ku wada noolaato in meel kasta oo dab ka bidhaamayo bakhtiintiisa iyo ka ergeyntiisa iyo ilaalintiisaba aanu diyaar u nahay gacan aanu ka geysan doonaa haddii aanu madaxdii dhaqanka ee beelaha direed aanu hadhimo sharafeedda ee lagu sharfay boqorka iyo ugaaska beelaha direed iyo inta kale ee salaadiinta iyo ugaasyadaba leh iyo madaxda kale ee meesha joogta ee soo ajiibtay xafladda hadhimo sharafeedka Abshir uu inoo sameeyey ee uu ku casuumayey ee uu ku soo dhaweynayey labada oday ee qariibka ah inala jooga ayaamaha loo xafladeynayay waa soo dhaweynaynaa waa ku soo dhaweynaynaa waxay hordhac u yihiin shirkii weynaa dir iskugu imanayay oo insha Allah dhawaan dhici doona kana dhici doona Soomaaliland gudaheeda halku ka dhacaya kordhici maayo laakiin insha Allah kaas intuu imanayo baanu dhaqankii hadaanu nahay aanu wacyigelinta sii wadnaa insha Allah waxaanu noqon doonaa ku midho dhala oo dir meel kastuu jooga insha Allah mideeya ugu mahadnaqayaanu يعني مرتقات كان قيمها له
ay beeshii iyo labada xubnood ee mas'uuliyiinta sare madaxda dir ah ay u fudiyeen aad baan idinka mahadnaqaynaa. ilaahay waxaan ka baryayaa arrinkaa aynu iskugu nimid iyo walaalnimada iyo sharafta iyo arrinkaa aynu unugnay ee muddada aynu wadnay waxaynu wadnaa untii diinteennu ay tidhi is-aqoonsadadii un baynu wadnaa wax dhiboo kale ma wadno arrimaheennana insha allahu biidnillaahi sidaa aynu abaabulay bay iskugu xidhmi doontaa koone ilaa koone waxaan ilaahay ka rajaynaya inaynu hareeraha iska taagno arrintaa kii guddoomiyaheenii cabdiraxmaan jaamac dhawal waa qoladii ergada ahayd ee ku marnayd bari maantay soo noqdeen ma dhoweyd buu ila soo hadlay way yimaadeen way soo galeen wuu yara daalanaayo waan u sheegay casuumadda lagu casuumay boqorka iyo ugaaska wuxuu waan yara daalanahay adaa iga wakiila salaanta iga gaadhsii taasina ugaaskii baan suldaankii baan idinka sidaa guddoomiyihii baan ka sidaa allahayow dir iyo daarood dadka nabad ku daayimi waqaan daaraheen dubin dayaxeen madoobaan duunada islaan jamin. ugu dambeyntii iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay ugaas cabdilaahi ugaas aadan iyo boqor cabdirasaaq xaaji aadan oo ah ugaaska iyo boqorka guud ee beelaha dir kuwaasi oo mahad celiyey beelweynta Kishe ee ku sharaftay munaasabadda harimo sharafeedka ah. inaan ka hadlo waxaa jira dhibaato ka socota deegaanka Soomaalida Itoobiya. dhibaatadaas deegaanka kaliya kama socoto markii hore ina cagtar ninka madaxweynaha ku sheeganaya jigjiga wuxuu abaabulay asagoo qaatay go'aan iyo tala daarood in dowladda Soomaaliland la dhaqaso nabadgelyadeeda la firqaawacmay iyo dadkii Soomaaliland kale ka dhintay iyo dhibaatada weli uu halkaa ka horinayo iyo ciidamadii liyu booliska oo lagu aas-aasay dhaqaalaha deegaanka Soomaalida ayuu u adeegsaday iyo hubkii deegaanka Soomaalida iyo ciidankii liyu booliska ilaa aaminsanaa inuu ciidan deegaan Soomaaliyeed yahay ayuu wuxuu adeegsaday inuu xuduudda Ethiopia inta ka saaro inuu ku weeraro dal daris la oo nabad ah oo Soomaaliland leeyahay waayo beesha Kishe Somaliland Suldaan Abshir Xasan Ali waxaan leenahay suldaan aad baan kaaga mahad celinaynaa madashan sharafta badan ee aad ku maamuustay dhammaan dhaqankii halkan joogay iyo annaga idin nimidba aad baan kaaga mahad celinayaa adiga iyo beesha iyo cuqaasha inta halkan joogtaba inta markaan ka gudbo kolley waxa weeye mar walba waxaanu baad istaba jooga aan u jeedinaynaa aanaan ka daalayna in mar walba aanu summad u nahay haddaanu nahay beelaha direed markaan kor uga kacana iru Samaale dhammaan Samaale waxaan leeyahay mar walba anagu waxaanu soo dhawaynaynaa nabadda inta nagala shaqaynaysa ayaanu aad u soo dhawaynaynaa ta kale waxaad ogaataan ninka dhaqanka ah ee ku suntan inuu nabadda ka shaqeeyo maalinka ay taagan tahay haddaanu muxuu cimaamadiisa una soo muujinin waxa weeye dhaqankaasi dhaqan Soomaali lagu yiqiin ma waxa weeye marxalado badan bay Soomaali soo martay dhaqan bay lahayd waa la istiri jiray waa laga heshiin jiray maanta in dhaqankii siyaasad laga dhigo annagu waxaan u taagannahay dhaqankii hore geedka hoostiisa la tegi jiray lagu baani jiray muxuu ahaayey mahmaayo badan oo Soomaalidu ay hadda maanta ku dhaqanto laga hayo waxa weeye ayaan annagu wali dul taagannahay. Maxamed Umar Daariq warbaahinta 5 TV Hargeysa.